السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب يالكسو دوادا kanaalkeena aan kusoo bandhigna dhacdooyinka sidoo kalena qaybta hoose commentiga inoogu sheeg muuqaalka aad jeclaan lahayd inaan soo diyaarino amba linkigiisa inoogu reeb meeshan haddii uu yahay mid markaasi anfacaya bulshada sidoo kalena faa'iido u leh. haddaba aynu galno barnaamijkeena maanta daawade. muuqaalkeena ugu horeeya waxaan ku daawanaynaa wiilkan oo doonaya inuu la ciyaaro daanyeerka, laakiinse daanyeerka dhab bay ka noqotay oo wuxuu markaasi sameeyay arrinkan aynu arkayno. wiilow mar labaad ha la ciyaarin daanyeerka, sidoo kalena iska ilaali markay xaaladiisu dhabta taagan tahay. miskiinkani hawl adag ayuu qabtay, wuxuuna markaasi geliyay waqti fara badan, wax badanna uu simayay meesha, laakiin ayagan dhib ka badan ayaa soo baxay. wuxuuna markaas ku ciyaaray wixii maanta oo dhan uu simayay, waqti badanna uu geliyey. alla maxaa tahay ay dhib badan. marwo waa inaad iska ilaalisaa marka xigta markaad ka boodaysa meelaha sidan oo kale ah. dhab ahaantii waxaa laga yaabaa wax yar oo aad iyasaysay inay dharka kugu ridaan amba dhibaato ay kugu sababaan. darawal iska ilaali oo iska fiiri jidka markaad dhaqaaqayso, kana taxadir inay tan oo kale kugu dhacdo mar labaad. miskiinkani waqtigiisa iska qaadanayay, wuxuuna markaas eegeegaya geesaha, laakiinse dhibaatadan ayaa ku dhacday. wuxuuna ku qasban yahay inuu ku laabto xaafadda si uu dharka iskaga soo bedelo. waxaan filayaa inaanay taleefankiisa iyo qalabku ku sitay jeebka ayna gaadhin khasaare, sababtoo ah biyaha ayaa gaadhay. marwo ma sidan oo dhan ayaad ugu kalsoon tahay kursiga? iska ilaali marka labaad, ha u noqon arrinkan oo kale. xirfadda uu darawalkan u leeyahay waa mid cajiiba, naxariista rabbina kama maqna meesha. bal fiiri siduu uga leexiyey wiilka baaskiilka wata, wuxuuna markaas ku dhowaaday inuu shil ku galo, laakiinse ilaahay idankii wuu ka badbaaday. gabadhan yari waa geesiyad, saaxiibadeedanba walaasheed bay ka calinaysaa aygan, iyadooba markii dambe aragtay inaanu tegayn way qabatay, kadibna way qaniintay sida ayga oo kale. saaxiibka iyo abiya makaag ayaa ka soo hadhay, maxaa ii geeyey ayaa ka raacday. ka waran gaadhiga midabkan leh, sidee ayuu iidan leeyahay saaxiibayaal? waa mid qurux badan dhab ahaantii, aniguna waan ka helay, idinkuse maxaad ka leedihiin? marka dirawalla manaxayaala ay waddada kula wadaagaan waa iska sidan oo kale. bal fiiri dhibaatada meeshan ka dhacday. weligaa ma maqli jirtay yaraantaadii aabba ninkan weyn anaa iska calinaye, aduu ka yariga cali. waa sida aygan oo kale, bal eeg siduu u doonayo in uu ula dagaalamo aygan, cadaawadda iyo xanaaqa ka muuqda wejigiisa. bal u fiirsa marka la istaajiya meesha, wax gacana ma qaadayo, wax xarakaad ahna ma samaynayo, laakiin marka la calcalinayay uu fakanayay. waa heer karoo fulaynimo ah. gaadhigan madow ee hortaada ka muuqda, midka dhinac midig ka xiga markii uu dhaqaaqay waxay mid gaadhigan, kadibna wuxuu ka maray afka hore kana burburiyey. darawalkan wada gaadhiga midigta xiga ee cas muxuu u dan lahaa? waa shilqaab daran, gaadhigiina waa buu rogay. asxaabtani halkan ay waqti iskaga qaadanayaan, macnaha reerkan weliba biyahan yar ay iska dhex boodboodayaan. farxadda wax kharasha laguma iibsado. gaadhigan balileeg siduu baraf ugu ciyaarayo, sidoo kalena uu dhinacba mar ugu cararayo.
isagoo yarkani doonaya inuu hagaajiyo shaygan meesha yaalla wax markaasi dhacay waxaanu filaynin gaadhi ayaa waddada ka soo baxay laakiin ilaahay iyo fadligii naxariistiisa uu ka badbaaday in wax mushkilad iyo dhibaato ay soo gaadhaan waxay u muuqataa in ninkan cabitaanka iska badshay xalay oo dhanna khamri fara badan ka dhargeeyey darawalkan gaadhigan uu ka waalayay xawaaro sare ayuuna ku waday laakiin maxaa dhacay darbigiina wuu dhibaateeyey gaadhigiisina uu iska burburiyey alla nacasanaa ninku ninkan taleefanka inuu ku hadlo aad ayuu u rabay kool aad u muhiima ayuu ahaa ilaa uu hilmaamay inuu hambiriga u jiido gaadhigiisa gabadhani waxay doonaysay inay mootada alaabta saaran ka dejiso ilaa iyo gabadh kale oo ka dambaysay ay mootadii la soo fakatay sidoo kalena ay madaxa la gashay boodhkan ninkan wada gaadhiga cad ee naga horreeya talo miyaanu arkayn oonu u jeedin gaadhiga weyna kusoo jira waddada muu istaago halkee buu socdaa eygan waxaa lagu tababaray baashan la tuurayo inuu taabto kuna taabto lugihiisa hore isagoo islaba rogaya ninkan odayga ah ee weyn wuxuu islahaa meeshu waa meel adag laakiinse muu ogeyn inay tahay meel jilicsan kadibna way la go'day oo way la duntay wuxuuna ku dhex dhacay meesha waxaan soo gaadhnay gebagabadii saaxiibayaal kanaalka sabskrayb dhaha si aan u gaadhno 5,000 oo sabskraybar sidoo kalena gaadhsiiya tiro fiican waa inoo barnaamijka kan xiga fi amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu